الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل كان أما ورصحافذات كان وحاسكسو دبردي Somali American Leadership Table oo gobolka Minnesota oo dhan matalahaya waxa ku jira masaajidadii non-profit-ka ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dadkii hogaaminaya dhamaantood gadaasheeda ay taagan yihiin kelmad ayaan siinaynaa ajandaha shir-saxaafadeedkan loo qabanayo waxa waaye in harassment-ga ama digashada ay isku hayso dadka Soomaaliyeed kuwa sharciga leh iyo kuwa aan sharciga lahaynba in ay ka sheegaan maaragtay waxa uga aadan inaynu ka qabanno waxaan hadda ku soo dhaweynayaa Somali American Leadership Task Abdullahi Faarax iyo Cabdiraxmaan Cabdulle in ay introduction yar uu naga siiyo Abdullahi Faarax marka ugu horeysa kadibna waxaan u yeeraynaa speakerska بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan rabaa inaan idin sheego Somali American Leadership Table horta organization ma aha waa miis lagu wada kulmaayo hay'adaheena leadership markano hoggaankeena masaajidadeena elected officialskeena businessledeena waa miis u wada furan dadka Soomaalida ee hogaamiyaasha kala duwan waxa weeye aniga iyo walaalkay xidig ayaan daadihinayno runtiina waxa waaye waa sideen u markin iskugu keena awoodaheena kala duwan oo si aan markin waxa la dhahaa state-kan Minnesota aan joogno aan wax uga qabanaa intaas aan leeyahay xidigan ku soo dhaweynaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد سيدي ولال وشيخ عبد الله ميس كان معهن ميس أور عصب أو حد لصمينه وميس إنه قتل قلني إن بالشدة قيبه هذا كل دوان أردن جالية كنول من صوت كسوق قيب قشو وميس إنه كل سنة أود دينا وميس إنه سكو أورورنا نعد كنا يوميس إنه ربنا إن أن دتكنا كود دفعنا مركا ساس ayaan jeclahay in loo ogaado intaas ayaan ku dari lahaa hadalka walaal Cabdullaahi aad bay u mahadsan yihiin labada walaal haddana waxaan jeclahay inaan mikrofoonka siiyo Sheekh Cabdirasaaq Xaashi oo ah gudoomiyaha guud ee hay'adda Islamic Association of North America ama isutaga muslimiinta ee waqooyiga Mareykanka Sheekh Cabdirasaaq soo dhawo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan isugu nimid meeshaan oo aan rabnaa dadka Soomaalida muslimiinta iyo community-ga degan gobolkan iyo wadankaba dhamaantood in aan ugu baaqno oo ogeysiino waxaan ku jiraa marxalad adag waqti adag baan ku jiraa waqtigaan oo kalena waxa looga baxaa midnimo iyo awooddaada inaad midayso awoodeena waxyaabaha midayn kara waxa kamid ah kow tala saarashada Allah aan tala saarano iyo kalsoonideena iyo iimaankeena Allah aan ku qabno inaan xoojino inaan noqono dad baraarugsan oo mas'uuliyadda maanta saaran dushooda dareemaya oo qof walba uu istaago baan xoojinaysa waxaan xoojinaysa midnimada iyo isu imaanshaha iyo tafaraaruqa in aan iska ilaalino maanta oo kale waxaan xoojinaysa in aan akhlaaqda wanaagsan ee islaamka aan tusno dadkeena iyo dariskeena iyo mujtamaca waxaan xoojinaysa inaan cadaaladda u hadallo inaguna cadaalad aan u istaagno dulmigana aan diidno cadaaladda aan helno waxaan xoojinaysa inaan istacaawino oo isgarab istaagno oo iscaawino wax kaste oo na kala goynaya maanta oo na daciifinaya oo qofkana necab uu rabo oo ay ka mid tahay qabyaaladda kala tagsanaanta iskhilaafka isgarab orodka waa inaan iska ilaalino waa inaan maanta mid noqono isxoojino oo mushkilada maanta na haysata ee mujtamaceena soo food saartay aan ka saaro weeye idanka ilaahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ayuu mahadsan yahay Sheekh Cabdirasaaq Xaashi haddana waxaan jeclahay inaan mikrofoonka siiyo Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masaajidka Ummatul Islaam Sheekh Axmed الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaan leenahay jaaliyaddeena sharafta badan ee Soomaaliyeed Minnesota isdajiya Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul kawn baynu cuskan hayna isaga asaa go'aankiisa meel maraya dadaal fara badan waa la wada markii isdajiya
teeda labaad anoo sheekh hadalkiisa sii xoojinaya Soomaalida waxay tiraahdaa maamaha bahadlabe hooyadii qadisay hooyadii naxariista badneed baa ilmaha iska aamusa uu qabaa taa waxaan ka wadnaa waddankan aan joogno qofkan codkiisa banaanka keenin qofkan hadlanin uu qadaya Soomaha Allah taana waxa lagu heli karayaa markii codka la mideeyo cod habaysan oo mideysan markii la helo markaas la saameyn kara bulshada kale codkeenu meel dheer uu gaari karayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu ilaahay xarigiisa in la qabsado dhamaantiin waa midnimadii oo tafaraaruq laga fogaado تفرارق محوكينيا أود ضعيفة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذه ماشي تفرارق يماد عدك اللمدين وايو فشل بعد عيا فشل كان وحاكت لش أود بحيثا مركا قيام مركا ملهين النبي صلى الله عليه وسلم حوليه إسوة المامية ضد كان اسكت دوبان عدي يقول وغب حضا إنما عليكم بالجماعة ضدوا جماعة وذا جرك اللازمة مال كستو أدونك لجوه هل كان جوجان والله غسي بهاي عليكم بالجماعة جماعة وذا جرك كل دلالة محيا لي فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية لرواء وأرجع النف كجون وغب حب الله لكن مركز كدو بي هاي لرواء مسؤول حقي لك رأيه مركز سوى الدلال فربنا معلمها سعودي أو بيكسك أن لو هيو أو مال فربنا كوا جهن معلمها لقصوا هذا الليين درسكي ضدكي ودك دجانانا أي نهر بوضيانا قرب كنا ثاقيين إن جينا ما دام هاي بضجه أن دلال موجينه وإذا جينا كل دلال عد كان المدرسين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد تاجر إمام كمسجد أمة الإسلام آدي ومهتسني هاي وحان جعلها هذا حق الدمر كائنا جلعه سيان ما أركته أن أبلانس قرينه وحان أيرينا ولال فاضم مولس أيضا إن كلمة ديرة هذا. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان إذن سلام يا دتك مانتا press conference سو ديارية وحان أي هوي سوماليات وحان ربا إن أشياء بالشدة من صورة كنول ولي أنا وكوه الله يعد كوالدين تا ilmaha ana dhibaatooyin badan baa iskuulka naga haysta ilmihii waana laga buligareeyay marxaladooda maskaxiyan qatar weyn bay ku jirtaa marka waxaan rabaa inaan bulshada u sheego dadka wax ka shaqeeya iskuulaadka la shaqeeya terabistayaasha ah waalidiinta waliba waalidiinta aabayaasha iyo hooyooyinka in ilmaheena aan la sheekaysano moor inaan ilmaheena cashada habeenkii la soo fariisano miiska weydiino xaaladooda iskuulka seebay ahayd ilmaheena hadda waxa soo gaaraya in habeen walba markii ay guryaha yimaadaan ayagoo depressed ah iskuuladina ay diideen inay aadaan maxaa yeelay waxa la leeyahay waxaan idinku wacaynaa ice waxaan nahay dad Mareykan ah wadankan xaq baan ku leenahay waan ku dhalanay sharciyaan ku haysanaa dakhal weyn Soomaalidu way soo gelisaa in annagana lagu buligareeyo oo looga bilaabo iskuulaadka waxay qatar ku yeelan doontaa mustaqbalka ilmaheena jiilka soo socda haddii qofka maskaxiyan laga dilo waxba ma qabsan karo ilmahaas hadhow dhibaatooyin badan baa u imaan kara waxaan rajaynayaa midnimada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa dadka Minnesota jooga inay hal cod ku hadlaan inay isqadariyaan inay miiska soo wada fariistaan kii xanuunsan in la support gareeyo kii dhimir qaba oo mental health qaba in la support gareeyo hooyooyinka ilmaha special need ka baahida gaarka ah lehna in gooni looga warqabo ayaga laftigooda dhibaato kala haysata oo ah cunsurinimo systemka uu nagu hayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadsanidin aad ay u mahadsantahay walaal Faadumo haddana waxaan jeclahay inaan mikrofoonka siiyo Sheekh Maxamed Mursal imaamka Masjid Al-Ihsan Islamic Center ee ku yaala St Paul. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد مركوبة إله بمهد له سبحانه وتعالى مركب بعد وحان ربا إن أمهد عليو our governor the governor of Minnesota Tim Walz Attorney General ka xildhibaanada gaar ahaan xildhibaanada Soomaalida kuwa sanadka noogu jira kuwa city councilka noogu jira iyo bulshada Soomaaliyeed
iyo sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadweynihii Minnesota ee hiil iyo hooba nala garab istaagay anoo ku hadlay magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa idinka mahadcelinaynaa dad abaal loo galo oo abaalka gudaanahay insha Allah taala abaalkiinana waa gudi doonaa taa waa midda labaad dhibka hadda inuu haysta waxaan u arkaa anugu runtii inaan ku adkaanayno ku midoobayno dhawaaqeennuna meel fog u gaari doono sababta la inoo taarget garaynaya maxay tahay sababta waxaa weeye because awood baan nahay awood dhaqaalaan haysanaa awood cod baan haysanaa waa isku duubannahay kastoo inagu aanan moodaynayba inaanan saa u xoog badnayn laakiin hadda waxaa ogaanay inaan xoog badannahay awooddaana waxay ka imaanaysaa waxa weeyaan waa isku duubnideenna waa iimaankeenna waa shakhsiyadeenna waa sambuusaheenna waa canjeeradeenna insha allahu tacaala horena u soconayna jazaakum allah khayr sheekh maxamed mursal aad buu u mahadsan yahay dhowr qof oo kale ayaa ii qoran insha allah waxaan jeclahay qof walba inuu hadlo orderka loo kala hadlay macno badan ma sameynayso laakiin fariinta la diraya ayaa ugu muhiimsan waxaan jeclahay haddana inaan kelimad siiyo walaal ruqiya oo iyadana hooyooyinka matalaysa insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلين وعدين سلام يا دمان انت ماشي جوكتو سوق قبل قابسي بريس كونفرنس كان وحنا هاي أمة سومالية أو ماشي عن كل نول wax badan oo foolxun baan ka aragnaa TV-ga waxa loo baahan yahay inaan gacmaha isqabsano inaan ma aragtay istaageerno inaan waxa xunna diidno annaguna aanan ku kicin waxyaabo foolxun oo image-keena khaldaya in Allah la yuhibbu dhalimin la yusidu dhalimin illa khasaara ilaahay qowlkiisa ku ahaatay waxa way dadkana dulmayna ayaga khasaaro ku dambeynaya insha Allah ta'ala waxa weeye waa in la kaalmeeyaa waayeelka oo aan afka aqoonin documentigooda waa in la isugu diyaarshaa la isu dhexgashaa waxaan dawladda Minnesota joogtana aad baan ugu mahadcelinaynaa Tim Wallace Kid Ellison iyo dhammaan xildhibaanadayada iyo inta neighborhoodka oo na ag taagan masaajidka markaan tagno dad cadaan ah taagan oo u taagan ISIS inay ka ciirshaan وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيس وحين نقطة هذا آيسس مركها هذا وحين جعلها هنا كلمة السيد الشيخ عبد الرزاق صنعاني إمام كمسجد روضة عبد الرزاق من جوجا. أوكي الشيخ عبد الرزاق دو جوجن كلمة وحنسينا قيادة جناح ستة على قاشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سويد دي سافري آيريش كمركي ما دام هل ديجري. waxay rabaan inay madaxweynaha Mareykanka ku bedelaan Boobka Irish Vaticanka dadkii la ka soo horeeyay u fiirso kulli meel baa lagu haystay Irishka la haystay Talyaaniga la haystay Yahuuda la haystay Japanka la haystay qolka la haystay marka anu aad baan u faraxsanahay horta listigana lagu daray listiga dadka xooga waaweyn baana lagu daray oo laga baqo ma fahanti saaxiibadayda kale oo Afrikaanka wadamada kale waxaan yaab ku yaqaan adiga Trump Zimbabwe ma yaqaan meel ku taal ma fahanti so waxba ku farxinina maxaa marka qof ahaan sameyn kartaa dad Soomaali tahay dad badan waxa arkay baasaboorro waaweyn haysta aqalkan ku dhasheen oo dhuumanaya waaba laga raayay horta ninkii meesha soo fariistay Homeland ninka madaxa dhuuman oo eeg ninkii Jarmalka ma fahanti muxuu magaciisa have something Miller no Miller mid kala dhaho ma fahanti ha ninka habaysan daarti shaydaan masawirkiisa ina aragtay waa ninkaas ma fahanti marka waxaan ka wadaa wuxuu yiri anaga goolkeena waxa weey maaha Soomaalida inaan ceyrin karno sharci leeyahay oo ognahay laakiin waxaan rabnaa inaan pasture ka jabino yiri inuu pasture qabka in laga jabiyo ma fahmaysa in nasabnaba laga qaado in gun laga dhigo shala marka moolkii tagaan ku arkay cadaan ka badan Soomaalida oo cadaanka og yihiin inay idin taageeraan moolashiina taga dukaamadiina furta buuxiya magaalada hadaa hal sambuus cuni jirtay saddex cun hadaa laba shaah gadan jirtay afar gado maalintiin waqtigii la rabay in la soo baxo waay ma fahanti soo saara ku wiiljeerada soo saara magaalada waxa dadku inay isdhahan warkaal Soomaalida ma soo bateen mise guriga ku jireen ka soo saara dadka salaamu calaykum thank you sambuuska la badsado haddana waxaan siinayaa xildhibaan hodan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف بيئتها إن هلكن سو استاجو أنا جو ما أنت كهاد لنا أرمها الصوماليات أو ل سمية ميس أي صومالي دكتور مذودي ممكن شيطان كواحد مداب إن إلهي حقي سلينا جو صدره إنه دت كم مذيو أنا جو إسقاب قبسي وح ما لا يعني أكون مشغول سنبا نجح لينو جو صوتوري وان مذوني مركب هرت هذا every wax walbo dhibaato oo dhaca adduunka silver lining wuxuu leeyahay opportunity and I think opportunity meeshan ka soo bixi doonto waxay tahay inaa communitygeena midowno marka waa inaan fahanaa horta maxaa laynoo haystaa waxa loo haysto Soomaali maxay tahay Soomaali markii meeshan lagu keenay qaxooti lagu keenay waxaa lagu galiyay bracket circle baa lagu galiyay circle-kii layna galiyay waan ka baxnay inaan cayr qaadano oo rafaadno oo sectionay deganaano wilgeen iyo low income housing oo aynan همي بيلانين وإنن بسنسي سميسنين وإنن حلبانة سميسنين وإنن دينع والبا سومالي ذو حاويان مركي لغا سارة عدانك جروب كأن عدان أهيني وقبضن قلين شبيه جامعة ذها تاسو وحي كنتو سيسا إن دذال فربضن كوميونيتيين أي سمينيسا مركي دذال كي أن سمينيني iyo dhaqdhaqaaqeeni faraha badnaa baa la arkay waxa la yiri dadkan hadaan ay sidan ku sii socdaan berito wax walba naga qaadanayaan marka horta waxa la inoo haysto ma aha waxaynu inagu sameeynay it mahad how dare you bay dhahan Mareykanku how dare you sidee baad ugu fakari kartaa wax aan lagugu talagalin marka alxamdulillah Soomaali dad cabsada ma aha laakiin hadda waxa moodaa inaan yara cabsanay Donald Trump ina yara cabsibu ina yara gelin marka waxaan rabaa dhalinyaradii yaryarayde Black Lives Matter iyo mataqana Free Palestine meel walba u taagneed intee aadeen Soomaaliya intee aadeen dadkeen way inoo baahan yihiin dad cadaan ah maalin walba banaanka inoo taagan dhaxanta inoo taagan pepper spray lagu shubaya hal qof meel walba oo tagto 20 qof oo cadaan markay joogto maybe hal qof oo Soomaaliya ku jira so dadka citizenka maxaa ka cabsanaysaan stand up for your rights and stand up for your people wax qaldan waliga xaq laga ma xishoodo waxan wax qaldan weeyaan waxa la inagu sameeyay waa qalad mana qaadanayna qalad mideeda kale spirit ka la raba in laga dilo spirit keenuna mid jabaya ma aha marka waxaan rabaa in aan u sheego dadka waalidiinta ah ee cabsanaya ee guryaha ku jira ee maybe re-traumatizing dhaawacyo hore soo xusuusanaya citizen baatihiin wadankan leedin kama laha ninka kursiga maanta ku fadhiya ee madaxweynahan ahay la heshay shaydaanka ah yaa awoogiis ba meeshan isagoo qaxootiya yimid marka yaan leedin cabsi gelinin wadankan wax inaga le ma laha sharci baan ku haysanaa naagtu qabana waabad aragteen ingiriis ma bataqaana raashiya ka timid waa qaxooti sharci taa fiican ma haysato marka yaan leedin cabsi gelinin walaalayaalo dhalinyaradana waxaan rabaa I want to see dhalinyarada Soomaaliyeed ee citizenka ee sharciyada wadanka ku haysata mool Carmel baan rabnaa inaad timaadaan maqaayadaha inaad timaadaan show up for dadkaaga dadka sidar maalin walba la terrorize gareynaya show up for dadkaaga insha Allah assalamu alaykum thank you aad baa u mahadsantahay xildhibaan hodan haddana waxaan jeclahay inaan kelmad siiyo Sheekh Cabdifataax Mursal oo ah directorka مسجد دار القلم مجوجا ما بحي waxaan siinayaa ugaas maxamed xirsi oo runtii hadda nagu soo biiray dad badan inaan garanaynin baa laga yaabaa ugaaska si fiican loo soo dhaweeyo insha Allah taala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين dadkan qiimaha badan ee hawshan aad u muhiimka soo abaabulay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة كوبين يهين كلمة دانا نقول لها واحد هاي أرتو حلقة يا أبو أرنتن إني خير نوجتشرو عينو شري سنة إنه وإلهي باب سبحانه وتعالى يلي وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله أعلم وأنتم لا تعلمون وحن وجد شيء ده وينو كلا دات سنين قبائل يخير يدجان محي بنو كلا وحيسناي سمينا جلين هاوشنا وإنا مدايسو يرجينيا مركا فائدة إلى ذي واتاس خسارنا وإلى ذي دتك على دبي إلى هاي وحكلوا شرا ولا يالو سومال ده هذا إنه هاي حيوان كانوا لقنا حولها جيلا وجود بدن مركا الله طلع نف كلو قلت له الحنوجيو ويقرأته ويقولشها ده إنه حنون كادر إنه oo wixii hore inuu ku jiray ka baxno oo arintan u midowno oo muuqano oo dee walayna maagaya dad baynu nahay neeshika Mareykan ku nooloo dadka Mareykan kamid oo 60 sano nahay
marka sida gaarka leenoo taargergareeyay inaynaan gabanin baa fiican ee dareenkeenu muuqdo aynu soo baxno sida dadku inoo taageerayo u soo baxno kelmaddan kaga baxaya waxay tahay maanta waxaynu u baahanahay inaynu midowno dhibaatooyin hore aynu la dhutinaynay oo xagga dhaqanka xagga diinta gabdhuutay ka hadlayeen waxay noo raacday in layna maago war sidaa la sheegay hankeena la jebinayaaye aynu muuqano Soomaalidu han bay leedahay ta kale Soomaalidu waxay tiraahdaa berigii hore dawladda kacaanka hebel kacaanku ka dheeray waxaan ma yahay kacaanka ka dheeraynay oo markii la arkay firfircoonideena inaynu dawladda ilaa xagga saraf fuulay inaynu ganacsiga qabsanay inaynu wax kasta oo la leeyahay qabsanay waa layna maagayaa marka aan cagaa dhulka ku xijino geesinimadu waa cagaa dhulka lagu xijiyo waa mahadsantii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hal qof ayaan ku soo gabagabeynayaa waa idinku dheeraaday raalli ahaada dadkiina waa kala yaaceen maxamed wardheere السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتان هو لبا كلمة بان دهيا لبا كلمة waxay tahay إن شاء الله تعالى waxaan naloo haysto wax kala ma ahan firfircoonideena naloo haystaa election baana soo socda 2026 dad badan oo Soomaaliya oo runtii aan codeynin baa jira oo guryaha iska fadhiya markii electionadu jiraan wixii hadda ka dambeeya haduu allayno waxa naloo haysto waa codeysaan weeye waa shaqaysataan weeye marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo qof walbow waa inaad ka qayb gashaa mataqaanaa xaafadaha waa inaad tagtaa waa inaad kokoska ka qayb gashaa ama deegaanka xaafadda aad degan tahay waa inaad electionka guud isugu nimaadna confession baa dhici doona haduu allayno dhaqso marka dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa waxaan la ku haysto waa codkeena aan daba jibaarno qof walbowna hadii qofka aad codeynayso waana taqaanaa qofka shidada nagu hayana waa taqaanaa su'aal baan haday ninka cadaanka weydiiyay wuxuu yiri maxaa idin diyaarsan oo aan laga jawaabin hadaan dareemay macnaheedu waxa waaye dagaal baad soo wadaan community-giina see maxaad samayn doontaa waxaan samayn doonaa cid walba nala dirsan waana ka codeynayna haduu allimno cod baan waxaynu ku difaacan doonaa insha Allah هذا يوم تسنيهاي هل قف كلا إيه هري كدبنا announcement وأنا سوق بجبيننا أستاذ صالح حبيب ومال فوق نوبي بتوتر ريجستر أيان أودي بينا وزيرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على والسلام يا أدبان رنتي محو أو فرح سان كسو غيب قاله عفوا يعني كسو داهي رنتي أنت لا شيء ما لقبه محو رنتي أودياش ماشي جوري علماء جوري سيبا hal wax baan ka soo horjeedaayo in marmar qaarkood baraha bulshada ku aragtay meel kale ku aragtay in anaga dulmiga saarnay dambiga anaga saarno wax dambi aan leenahay ma jirto shakhsi ninkii dambaawa sharciga wadanka ka jira sharcigeedu leeyahay uu maraya laakiin dhibaatada neesto waxaan maleynaa marmar waan wixna la raadinayo inaan sameeyno muxuu ahaa inaan anaga dib isugu noqono muxuu ahaa anaga kan sameeyay anaga asyaalnamay anaga ismeeyeen waa dadaalna wax kale lagu haysto maxaa u dadaashay maxaa u dheereysay maxaa u shaqeysay maxaa u qabsatay waxna lagu haysto waa inta marka inta inaan ka sarreeyno insha Allah dulaa bulshadeen hankan inta uu ka sarreeyay marka wiilna aan u socono marka inta ummadda tirmaan la qabaayo waxa tan waa tii aan ku midoobo lahayn insha Allah dulaa yiraahdo hor aan u socono waxaan qabsanayna aan si laba jibaarno ganacsiga hala taageero kafeega ka gadan jirtay Starbucks u bedel muxuu ahaa inaan ka gado muxuu ahaa dukaan Soomaali leeyahay mise walaalka leeyahay intaad sameynayso ana hore aan bilaabay waagi Gaza boycott galena hore u bilaabay welina waxaan ka gadanayaa qof muslim intuu joogo mise Soomaali joogo inaan ka gadan qof kale waxaan u baahanahay hadaan ka helayo marka waxaan u baahanahay lacagteen inay ku noqoto bulshadeena haddana bulshadeena heerin qofka ku soo xigo muslimka hadduu qof muslim heerin qofka ku soo xigo muxuu ahaa nalajaanka oo runtii oo na taageero oo na garab taagan marka lacagteena waa inay macna sameeysaa shilinkeena waa inuu macna sameeyaa qofka ku garab taagan ganacsi duleeyahay ganacsigiisa aan taageerina insha Allah duleeyahay aad baa u mahadsantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh